habeen wanaagsan dhammaantiinba marka hore waxaan doonayaa halkan uga mahad celiyo dhalinyarada soo qaban qaabisay xafladan 16 Juun ee quruxda badan ee caawa halkan isugu keentay aad iyo aad baa u mahadsantihiin hablo iyo inaba magacaygu waa sida sheegay Axmed qof gudoomiyaha xisbiga ka ah UK waxaan marka hore fariin idinka sida gudoomiyaha xisbiga ka Maxamed Xaashi Cabdi oo runtii caawa idin la dareena idin la qaadanayana xafladan quruxda badan runtii salaan qiimo badan iyo muxuu ahaay xambaliyana halkan idinka soo gudbinaya marka horta fariintaasi waa iga gudoonaysaan reer Somaliland runtii caawa kale waa habeen qiimo leh waa habeen aynu xusno sanad walba 16 Juun ما هبين كي يقولين حسنه لكن واحد كجدون تهاعوا إنه أقونسي هايسنا أو يكدون هبين ذي كله أي رتي إن سنة كان 2026 وإن لكو سري إن رتي هدينو نهاي قربتشو قرر سومالان وحلينو جبهة هاي حفلة سنة كلا إن fundraising كلا سمين أيو ودن كني يدد كني إنه رتي أدو قيمة إنه oo aynu runtii aad iyo aad uga soo qayb galno oo aynu dhiirin galino dhalinyarada runtii habeen iyo maalin isku hawlaya in ay caawiyaan dadkeenii gudaha joogay ee runtii baahi badan u qaba in la caawiyo haday mental health noqoto iyo haday noqoto caruurta oofanaha ah ee aabaha iyo hooyalaantu hayso iyo runtii muxuu ahaay dadkeena kale ee u baahan xilliyada abaaraha oo kale amba haday ceelal noqoto runtii caawo kale waa xafladaha aynu u baahanahay inaynu joogteeno oo aanay noqonin caawo qurahe sanadkii 12 bilood at least inaynu laba goor xusno oo aynu runtii dhiiri galino xafladan caawo waa dhiiri galin dhinaca marka laga yeelana waxa weeyaan waa celebrations iyo inagoo runtii xusayna maalinteeni waa maalin qiimo inagu leh qof kasta oo Soomaaliland qiimo ku leh 16 Juun waxa ka soo wareegay 66 sano waynu dareemi kareynaa 30 sano oo ugu horeeyay oo dictatorship iyo runtii xilli badan oo inaga khasaaray oo muxuu ahaaye qax iyo rafaad iyo nolol adag ay dadkeenu galeen ayuu ahaa 30 sano ugu horeeyay 30 sano ugu dambeeyana wuxuu ahaa inaynu dhisno jamhuuriyadda Somaliland ee maanta taagan oo runtii aan halkan doonay inaan ugu hambaliyeeyo oo runtii salaana u diro madaxweynaha qaranka ee maanta haya xukunka Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha oo runtii ku suntan aqoonsiga maanta aqoonsiga ma aha aqoonsi iska yimi wuxuu aqoonsi ay madaxdii ka horeysay ee isagu ay runtii ay iyagu laftooduna ay qayb ka qaateen maalinba sanad walba madaxweynihii jooga ayuunba halkii ka sii anba qaada jaranjaradan waxay ahayd jaranjaro runtii 30 sano ugu dambeeyay laga shaqaynayay laakiin nasiibku uu sameeyay madaxweynaha maanta jooga inuu runtii ay timaado runtii madaxweynaha waan ugu hambaleynayaa safarkiisii ballaarnaa ee uu Israel ku tagay iyo runtii guulihii wax ku oolka ahaa ee uu runtii ka soo hoyay runtii Soomaaliland cadawgeedu u badan yahay dhinac walba uu inaga xigaa waxaanu u baahanahay inaynu u midowno wadannimada u midowno caawo kale ma aha habeen xisbi leeyahay waa habeen qaran waa habeen aynu wada leenahay waa habeen u baahan inaynu wada xusno dhamaantiinba waqti badan baa fadhideen hadalka idinku badin maayo 26 Juun reer Somaliland hambalyo meel kasta oo aad joogtaan Somaliland ha noolaato ha waarto ha midowdo isku duubni iyo waxaan inoo rajeynayaa iyo inagoo sanadkiisa aynu ku xisno wadamo kale oo runtiina aqoonsada habeen wanaagsan dhamaantiinba dhalinyarada fundraising ka sameynaya ha laga qayb qaato fundraising ka la sameynayo wixii lagu contribution gareyn kara ee lagu deeqi karana ha lagu deeqo aad baa u mahadsantihiin dhalinyarada soo qaban qaabisay mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahad celinayaa xafladan quruxda badan ee caawa ay noo soo qaban qaabiseen habeen wanaagsan dhamaantiin